بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعانو wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeena xogta dunida oo aad ka daawataan kulmiye show barnaamijkeena waxaynu diiradda ku saari doonaa Shiinaha oo weli ku hanjabaya in uu xoog ku qabsan doono Taiwan laba qorshe oo muhiim ah oo Shiinaha uu diyaariyay si uu ula wareego jasiiradan waxaan idin haynaa warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo arrintan ku saabsan mar kale barnaamijkeena ku soo dhawaada daawade haddii aad channelkaygan ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad ku soo biirto si aad mar walba ula socoto wararka iyo warbixinada xiisaha badan ee aan halkan ku soo gudbiyo mahadsanid Shiinaha ayaa sii waday hanjabaadda uu ku doonayo in uu awood military ku qabsado Taiwan waxaana carabka uu ku adkeeyay maanta inay si daacad ah uga shaqeyn doonaan ayna sameyn doonto dadaal kasta si loo gaaro dib u midoobid nabadeed isla markaana Shiinuhu waxa uu xusay in aysan macnaheedu taasi ahayn in la iska dhaafo adeegsiga awoodda ama xoog ku qabsashada waxaa barbar socday dowlatuska militariga Shiinaha oo dhinaca iyo dhigooda Taiwan oo dhinaca sare u qaaday xiisadda u dhaxaysa labada dhinac oo gaartay heerkii ugu sarreysay muddo sanado ah digniintan Shiinaha waxaa maanta soo saaray xafiiska arrimaha Taiwan u qaabilsan golaha wasiirada iyo waaxda wararka Beijing waxay u dhaqmi doontaa si daacad ah waxayna sameyn doontaa dadaal kasta si loo gaaro dib u midoobid nabadeed laakiin kama deen doono adeegsiga xoogga waxaanan haysanaa ikhtiyaarka ah inaan qaadno dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ayuu xafiiska ku yiri hadal uu soo saaray waxa uu carabka ku adkeeyay in tani ay tahay mid looga hortagayo faragelinta dibadda iyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada gooni u goosadka waa sida uu xafiiska hadalka u dhigay waxaan mar walba diyaar u noqon doonaa inaan ku jawaabno xoog ama hab kale oo lagama maarmaan ah oo faragelin ah oo ay sameeyaan xogaga dibadda ama ficil xagjir ah oo ay sameeyaan canaasirta gooni u goosadka ah hadafkayaga ugu dambeeya waa inaan xaqiijino rajada Shiinaha ee dib u mideynta nabadda iyo horumarinta geedi socodkan ayaa sidoo kale qoraalka lagu yiri Shiinaha ayaa sheegay in tallaabooyinkan halista ah ay ka dambeysay afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi oo booqasho ku tagtay Taiwan isbuucii hore laakiinse Taiwan waxa ay sheegtay in booqashooyinkan oo kale ay yihiin kuwa joogto ah Shiinahuna uu marmarsiyo ka dhiganayo oo kaliya in uu kordhiyo hanjabaadiisa jawaab dheeraada oo ku saabsan booqashadii Pelosina Shiinaha waxa uu sheegay in uu joojiyo wada hadal ku saabsan arrimaha amniga badda iyo isbeddelka cimilada ee Mareykanka oo ah taageeraha ugu weyn ee militariga iyo siyaasadda Taiwan dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Taiwan Joseph Wu waxa uu sheegay inay il gaar ah ku hayaan dowlatuska militariga Shiinaha oo ka tarjumaya hamiga lagu xakameynayo aagga ballaaran ee galbeedka Pacific halka Taipei ay sameysay dhaqdhaqaaqeedii si ay u xaqiijiso inay diyaar u tahay inay isdifaacdo istiraatiijiyadda Beijing waxaa ka mid ah in la xakameeyo badaha bariga iyo koonfurta Shiinaha iyada oo loo marayo marin biyoodka Taiwan in la soo rogo xayiraad si looga hortago in Mareykanka iyo xulafadiisa ay caawiyaan Taiwan haddii weerar uu dhaco ayuu Joseph Wu ku sheegay shir jiraa'id oo uu qabtay caasimadda Taiwan iyada oo ka jawaabaysa dowlatuska Shiinaha Taiwan waxa ay heegan gelisay ciidamadeeda balse ilaa iyo hadda way ka gaabsatay in ay qaado tallaabooyin wax ku ool ah waxa ay dowlatus dabrida ku sameysay degmada lagu magacaabo Bengtung oo ku taala xeebta koonfur bari ee jasiiradda waa dowlatus loogu talagalay in lagu sawiro difaaca Taiwan ee ka dhanka ah weerarka militariga ee Shiinaha telefishinka Taiwan ayaa sheegay in dab ka kacay xeebaha dalkaasi intii lagu guda jiray dowlatuska militari ee Taipei ee Bengtung oo u dhow aag ay horey ugu asteeyeen ciidamada Shiinaha dowlatuskooda dhanka kalena Pelosi ayaa difaacday booqashadii ay ku tagtay Taiwan inkastoo ay dhanka Shiinaha xiisad ka dhalatay afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka ayaa wareysi ay siinaysay NBC waxay ku sheegtay in booqashadan ay mudan tahay cawaaqibkeeda waxa ay Shiinuhu sameeyeen waa wax ay caadiyan sameeyaan Pelosi ayaa ku nuxnuxsatay iyada oo tix raacaysa dowlatusyada Shiinaha ee agagaarka Taiwan Pelosi oo 82 sano jir ah waxa ay sheegtay in Washington ay ku leedahay taageerada laba geesoodka ah ee booqashadeeda muranka badda dhalisay ee Taiwan iyada oo tilmaantay in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu ku sugan yahay xaalad jilicsan oo uu dhibaatooyin ku hayo dhaqaalihiisa waxaana uu wada cagajugleen argagax ah inkasta oo Shiinaha uu wada wili dadaaladiisa uu ku doonayo in uu dowlatusyada ku xoojiyo ee dhanka Taiwan haddana Taiwan waxa ay mar walba filan kartaa dagaal culus oo lagu soo qaado dhankeeda Taiwan waxa ay diyaarisay difaacyo badan inkastoo dadka falanqeeya arrimaha ammaanka
ay aaminsan yihiin in nidaamyada difaaca ee Taiwan hadda diyaarsadeen aanu waxba tari doonin mar haddii Shiinaha oo sanadkan noqday dalka labaad ee ugu cududa weyn ciidamada adduunka uu hal mar ama 48 saac gudahood ku dhex mari doono Taiwan oo idil. hase ahaatee waxaa jira dhaqdhaqaaqyo kale oo dowladda Shiinaha ay ku sheegtay in marka hore ay ku dooneyso in si nabada ay isu dhiibaan reer Taiwan si ay ula midoobaan Shiinaha. haddii taasi ay dhici weysana doorashada labaad ay tahay in la weeraro guud ahaan jasiiradda waxaa la leeyahay haddii Shiinuhu uu ugu talagalo in uu weerar ku qaado kuma qaadan doonto 48 saacadood gabi ahaanba in lagu qabto jasiiradda, laakiinse waxa Shiinaha uu doonayaa marka hore in jasiiradda uu go'doon geliyo adduunka intiisii kalena uu ka xirto. marka uu gabi ahaanba hubiyo jasiiradda in aagaga badda dhan iyo soo gelista laga xiro, waxaa xigi doona in dhanka hawadana uu sidoo kale ka xiro, maadaama haddii diyaaradaha Shiinaha ee dagaalka hawada ku jiraan aanay jiri karin diyaarad kusoo dhiirataa inay gudaha Taiwan soo gasho. taasina waxay keeni kartaa caqabad aad u xoogan. Mareykanka oo hadda sheegaya isagu inuu taageero weyn siin doono Taiwan isla markaana ciidamadiisu dagaalka iyagana toos ula geli doonaan Shiinaha iyagoo taageeraya Taiwan, ayaa taasi waxaa lagu tilmaamay mid laablakac ah oo Ukraine sidan oo kale ayuu Mareykanka ugu baaqay in uu siinayo garab xoogan oo military ciidamadiisuna ay ka barbar dagaalami doonaan ciidamada Ukraine. hase ahaatee Ruushka markii uu gudaha Ukraine soo galay waxaa la ogaaday in afka ay ku koobnaayeen hadaladii Mareykanka. Taiwan iyadoo dhinacna kalsooni uga muujinaysa Mareykanka ayay dhinaca kalena feejignaan xoogan ka qabtaa. sababtu waxa ay tahay haddii weerar la soo qaado in Mareykanka aanu ku sii dhiiran doonin in uu difaaco Taiwan kaliya marka laga reebo in hub la siiyo. sidoo kalena waxaa adkaan doonta in la helo marino hubka xitaa loo mariyo Taiwan maadaama ay aad uga duwan tahay Ukraine. dadka ka faalooda siyaasadda arrimaha dibadda waxay sheegayaan in xalka kaliya ee hadda dagaal lagu baajin karo ay tahay in wada hadal la galo, sidoo kalena dowlado kale ay soo kala dhex galaan Taiwan iyo Shiinaha si aanu dhiig u daadan dagaalna loo qaadin. laakiin waxaa muuqata Shiinuhu inuu mar horeba isku diyaariyay haddii hadal wax lagu waayo in dagaal la galo oo lala dagaalamo ciidamada Taiwan iyo sidoo kale cid walba oo garabka soo siisa. Shiinaha sidoo kale kama baqayo in xayiraado badan lagu soo rogo sida Ruushka oo kale, sababtoo ah muddo badan ayuu ka baaraandegayay arrimahaasi. dadkiisana waxaa la leeyahay waxa uu gaarsiiyey heer dhexdooda ay isku filnaadaan, kaliyana waxa dhibka qabi doona ay tahay dadka ku tiirsan suuqyada Shiinaha. daawada aragtidaada fadlan qaybta hoose commentiga inoogu reeb. mahadsanid. barnaamijka xogta dunida oo aad ka daawanayseen Kulmiye Show wanaga intaas. barnaamijka mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.